Sidee Moi u caawisaa dadka adduunka ugu nool ee Okinawa, Japan inay caafimaad qabaan? Dadka intooda badan waxay rabaan inay faraxsanaadaan oo ay ku noolaadaan nolol dheer. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ma awoodaan inay sidaas sameeyaan. Laakiin waxaa jira meel Japan ku taal oo lagu magacaabo Okinawa oo caan ku ah mid ka mid ah aagaga buluuga ah ee adduunka. Ereyga loo isticmaalo gobollada ay dadku inta badan ku noolaadaan ka dheer kana caafimaad badan celceliska caalamiga ah. Okinawa waa wax caadi ah in dadku ay si wanaagsan ugu noolaadaan nolol caafimaad qabta ilaa 9 eber meeyada iyo 1 eber meeyada. Haddaba waa maxay maadooyinka sirta ah ee dadka Okinawa ee ka dhigaya inay yihiin aadanaha ugu cimriga dheer adduunka? Maxaa Okinawans ka dhigaya dadka ugu cimriga dheer adduunka? Marka laga reebo qaadashada cunto caafimaad leh iyo jimicsi maalinle ah, Okinawans waxay leeyihiin caado gaar ah oo ka qayb qaadatay cimrigooda aan caadiga ahay. Waxaa loo yaqaan Moi, waxaa loogu dhawaaqaa Mo'eye. Tani waa dhaqan qadiimi ah oo Okinawa ah kaas oo dadka ka caawiya inay dhistaan xiriir bulsheed oo qoto dheer oo ay siiyaan taageero niyadeed ama mid maaliyadeed midba midka kale marka loo baahdo, sidaas darteed wax ku biirinaya noloshooda dheer. Ereyga Moi waxa uu ka yimid kelmad Jabaan ah oo qiyaas ahaan u tarjumaysa kulan ujeedo guud. Dhaqan ahaan, kooxaha Moi waxaa loo sameeyey dadka si ay isugu yimaadaan oo ay lacag, wakhti ama dhaqaale ugu biiriyaan si ay isu taageeraan marka loo baahdo ama hawlaha guud. Sannado badan, fikradani waxay u xuubsiibtay inay noqoto shabakad taageero bulsho. Moi mid ka mid ah caadooyinkooda cimri-dhererka Okinawans waa kooxaha taageerada bulsheed ee ka bilaabma carruurnimada oo ku sii fidsan 1 eber meeyadii. Dhaqan ahaan, kooxo ilaa 5 carruur ah ayaa la isku daray oo markaa waxay sameeyeen ballanqaad mid kasta noloshooda ahaan. Qoyskooda labaad waxay si joogto ah ula kulmi jireen Moi shaqada iyo ciyaarta iyo sidii ay isugu geyn lahaayeen khayraadka. Okinawans waxay la kulmaan Mois dhowr maalmood toddobaad kasta. Waxay wadaagaan waayo aragnimadooda, ka doodaan caqabadaha soo wajaha, waxayna midba midka kale u dabaaldegaan guulaha waaweyn iyo kuwa yaryar. Tani waxay ka dhex abuurtaa xidhiidh shucuureed oo xoog badan. Sidaas awgeed waxay u xaqiijinaysaa in wax kasta oo ay haystaan Moi ay ku caawiyaan wakhtiyada ay baahan yihiin. Sida Moi u horumariyo cimri dherer. Halkan waxaan ku taxnaa faa'iidooyinka togan ee Moi ay siiso dadka. Kow, waxay bixisaa taageero niyadeed iyo mid dhaqaale. Iyadoo fikradda Moi dhaqan ahaan ay ahayd in la siiyo taageero dhaqaale midba midka kale ee bulshada, muddo kadib waxa ay ballaartay fikradda ah in sidoo kale la siiyo taageero niyadeed. Waxaa la og yahay in godoominta bulshadu ay keento arrimo badan oo caafimaad sida niyad jabka, walaaca iyo xitaa arrimaha wadnaha. Taa beddelkeeda, Moi waxay dadka siisaa shabakad badbaado si ay u hubiso inaysan weligood dareemin kelinimo wakhtiyada adag. 2, waxa ay siisaa dareen ay nolosha ka leeyihiin. Ikigai waa qayb ka mid ah dhaqanka Okinawan iyo Japan, kaas oo bara qofka inuu yeesho dareen ujeedo nolosha ah. Iyo ka mid noqoshada Moi waxay siisaa dadka xiriir macno leh, taas oo siinaysa sababo ay ku toosaan subax kasta. 3, waxay dhiirigelisaa caadooyinka caafimaadka qaba ee dadka. Fikradda Moi waxay inta badan keentaa saamayn togan oo asaageed ah dadka. Tusaale ahaan, xubnuhu waxay inta badan isku dhiirigeliyaan inay hoggaamiyaan qaab nololeed caafimaad leh, sida cunno nafaqo leh, jimicsi joogto ah, ama caadooyinka joojinta. Tani waxay ka caawisaa dadka in aysan ku barbaarin oo keliya caadooyinka wanaagsan laakiin sidoo kale waxay raacaan iyaga muddo dheer, taas oo ka qayb qaadanaysa noloshooda dheer. 4, waxa ay ka caawisaa dhimista diiqada qofka. Waxaa la og yahay in walbahaarka daba dheeraada uu inta badan keeno cudurro habnololeedka ah sida hibertension, sonkorowga iyo kansarka. Laakiin iyada oo loo marayo Moi, Okinawans waxay si joogto ah ugu kulmaan shirarka waxayna leeyihiin xiriir fura. Tani waxay siinaysaa meel ammaan ah oo ay ku cabbiri karaan fikirkooda, taas oo ka dhigaysa in la arko lana maqlo. Waxa kale oo ay ka caawisaa qofku in uu la wadaago dhibaatooyinkooda, xal u helo iyo niyad jab, kuwaas oo dhammaantood gacan ka geysta noloshooda dheer ee farxadda leh. Ahmiyadda Moi ku leedahay adduunka maanta. Waxaan ku noolnahay duni ay kadeedka joogtada ah, arrimaha caafimaadka maskaxda iyo kelinimada ay si isa soo taraysa u noqonayaan wax caadi ah. Sidaas awgeed fikradda Moi ayaa ka dhigaysa mid muhiim ah oo maanta khusaysa. Moi waxa ay ina xasuusinaysaa muhiimadda ay leedahay in la dhiso oo la ilaaliyo xidhiidh bulsho oo adag, kaas oo si hoose qofka u horseedi kara nolol dheer, farxad iyo caafimaad leh. Guurka waxaa laga yaabaa inay dadka ka caawiso inay hoos u dhigaan heerka sonkorta dhiigga. Cilmi baadhis